فضائشة إيا خصائص مالك جمعي وحكمد ولا ليال إن إلهي سبحانه وتعالى أوت المامي دينتا إسلامكو إني لما يسترنتهي مالك جمعي سيد حديثك عمر بن الخطاب تلمامي مال مالمها كمد عمر وحوي من يهودي أويمي مركز وحوري يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا أميرك مؤمنين تو آيات كتابك نكمده ood akhrinaysaan haddaad muslimiinta tihiin haddii ay nagu soo degi lahayd annaga oo yahuuda waxaanu ka dhigan lahayn maalinkay soo degtay maalin ciida buu yidhi markaasaa cumar wuxuu ku yidhi ninkii yahuudiga ahaa ayu aayatin aayaddaasi waa tee weeyaan markaasaa wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina waa aayadda ah maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinna wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydana korkiinna aan ku taam yeelay waradiitu lakum alislaama diina diinta islaamkana aan idinka raali noqday inay diin idiin noqoto ood ku dhaqantaan aayaddaas weeyaan buu yidhi markaasaa cumar radia allaahu canhu ardaah wuxuu ugu jawaabay qad carafnaa dalika alyowm waalmakaana aladii nasalat fiihi cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam wa huwa qaa'imun bicarafata yowma jumca wuxuu yidhi xaqiiqee waan garanaynaa maalinkay aayaddaasi soo degtay iyo booskii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu taagnaa markay soo degaysay waxay soo degtay maalin carafa iyadoo maalin jumca ay tahay nebiguna banka carafa uu taagan yahay ayay aayaddaasi soo degtay xadiidku wuxuu tilmaamayaa ama ku tusinayaa maalinka jumce waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay diintu inay kaamil tahay oo ay dhammaystiran tahay bal siday culummadu tilmaamayaan nebigu aayaddaasi markay soo degtay wuxuu sii noolaa muddo aad u kooban oo aan gaadhsiisnayn 3 bilood aan gaadhsiisnayn laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa